عاقل عبد الرحمن ديرية شوقة وحكمي دي هي إرجاء بنتلان وقاقيب جلسة شرد وهشيسينات ودولة فدرالك الصومالية أي وقوقا بنيسو دنعيه كلا يمد دلك الصومالية سيدا معاملة كجرة دلك هذا عبد الرحمن ديرية أيها هجامينية إرجاء بنتلان وقاقيب جلسة هالكا marka hore caaqil waxaad warbixin naga siisaa shirkan aad ka qayb galaysaan waa shir nooceeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أبي بعض الصحافة وكسور وينيا شركة وشركة بالسورية دولة الصومالية أو مستودة مع مدولة الصومالية وبنبعنا تقول ما أنتم نفرمي شركة وشركة وشركة بالسورية ergada marka ka qayb galaysa tirada ergada guud ahaan waa imse lagu casubay ergada maamulka ka imanaysa أفراد أنا قبل وطن بعمرهم قبل وطن بعمرهم مين يعني ورانا قبل وطن دلجيت بعمرهم رجل بيتوس waa gartay qaabka la idin soo xulay oo maamul kasta ergadu ay ugu imaanayso waddo nooceeya loo maray waxaan ugu baqaalaa shirkan inay soo qaban qaabiso wasaaradda federal arrimaha gudaha iyo dib-u-heshiisiinta ee dowladda federaalka وهم وزارة arrimaha gudaha federal baasoo qalqaalisay dabadeedna waxay soo mareysay line minister waa wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedyada labadaas kaasoo xiraa wasaaradaha arrimaha gudaha maamul goboleedyada sida ay u xulayaan waxay ahayd bulshada inay ku qaybiyaan inta bulshadu ay u qaybsanto ama u qaybsanto intee maalmood buu shirkan socon doonaa intaan wuxuu soconayaa sida noo sheegay maanta furmay dadkiga dambe ayuu xirmayaa marka adigu waxa weeye already inta meesha ku sugnaan iscelis dabadberi 5 beri iyo 2 maalmood oo furitaan sii socday ujeedada laga leeyahay shirkan oo dowladda federaalku ka leedahay ama idinku uga qayb galaysaan maxay la xiriirtaa ujeedada dhabta ah waana loo yeeray abshiro waxaana naloogu yeeray shir dib-u-heshiineed oo soomaaliya isku imanayso way jirtay shirar badan oo hore dib-u-heshiisiineed baa la qabtay waxay ku xiran tahay mirabalkiisu cidda markaas hadda mas-uuliyadda iyo xilka ummadda waxay sida ay ka yeelaan bay ku xiran tahay shirkani wuxuu la xiriiraa horta mar waa shirarkii hore waa wadadiisii oo waa dib-u-heshiisiineed waxaana lagu heshiinayaa dee wixii dhacay sidee wax looga qaybsan karaa sidee kaliya halkaas bay arrinta ku wajahan tahay waa arrin sidaasa wey shirka waa yahay marka qodobada idinku hor yaala sidee wixii dhacay wax looga qaybsan karaa dooda nooca la xiriirta maxay ku salaysan tahay ma muqdisho kale hadda tusaale ahaan dad baa jira hanti ay lahaayeen weli ku dacwoonaya ama aan weli ku kalsooneen in ay dib ugu laabtaan ama hanti ku samaystaan arrimahaas ma la xiriirtaa dooda shirkeedu ku hortaala ama ajandayaashiisa abshiro waxaa laga hadlayaa ugu muhiimsanba wey waxbaa dhacay wixii dhacayna haddaan laga heshiin dee xodor la iskugu iman karaa marka dib-u-heshiisiin marka laleeyahay wixii horey u dhacay aan dib uga heshiino si aynu uga gudubno nuxurku waa sidaa marka haddii wixii dhacay aan laga heshiin sidee loo heshiin karaaba dee ma boodbaa dusha laga dheeya marka waa inspector waa sida aad u sheegi sax caaqil cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay oday horey uga qayb galay shirar badan oo dib-u-heshiisiin la xiriira ama gudaha puntland ha ahaato ama banaankeeda muxuu shirkani kaga duwan yahay shirarkii horey aad uga qayb geli jirtay horta shirarka waa ay kala duwanaayeen shirkan hadda soomaaliya isugu imanayso waa wax guud oo soomaali ah kuwan anigu arki jirayna waxay ahaayeen kuwa ama puntland gudaheeda ah ama maxaa yeelay tobeelo isqabtay ama sidaas oo kale ah shirkan haddii sida hadda soomaalida isugu kala laleeyahay ha loo heshiiyo oo wixii dhacay waxa looga qaybsado haddii ereyga sidaa loo yihi uu u socdo oo uu u miro dhalo waa wax saxa oo meel mari karaya hadii uu noqdo inta walaahowgii iyo shirarkii hore isugu yihiin jiray oo kale uu sidii u noqdana dee waxba kama soo baxayaan laakiin muhiimaddu waxay tahay
cidda hawshatan mas-uulka kaahi waa dowladda federaalka. dowladda federaalku iyadu sida ka yeesho ayaa shirkaan ama u yeelanaya ama u micnadeelaya nuxurka dhabtaayna waa intaa weyn. waayahay fadhiga koowaad shirkan haddii uu 7 bari socdo soona gabagaboobo ma ujeedadii laga lahaa waa la gaaray dib u heshiisiinta bay la mid noqonaysaa mise fadhiyo dambe oo la isugu soo laabanayaa jiri doonaa? maya waxaa laga ambaqaadayaa guddi shirkaan maanta ah dib u heshiisiinta xaggee ka bilaabaysa waa meeshaasay ka bilaabanaysaa furayaashu baa laga rabaa marka laakiin shirku mar iyo labo iyo saddex ka badan buu soconaya waxa soomaali ka dhexdhexayna wax fadhi maalinah iyo in meel fariisatay ay kusoo koobi karta maahe waa wax wakti badan iyo u baahan maxay ahayd is arag badan iyo kulamo badan iyo kadaaraan degid badan u baahan keerga ahaan ma ku tala bixiseen in fadhiguusan hal goob haddii shirar kale ay ku xigi doonaan inuu ka qabsoomo ay xoogaa moodid in dadku ay ka aragti ka ah ka bixinaya in laga qurux badan yahay oo fadhiyadu magaalooyin kala duwan ka dhacaan? ma aanan gaarin intaasi shirku maanta furitaan buu ahaa wixii nagaga aadan kolleyba de waan karaynaa waan oran karaynaa laakiin taasi lama aanan gaarin laakiin dib u heshiisiin marka ay tahay waxaa lagu khasban yahay meeshii dib u heshiisiintaas xal loo arkaba in waa lagu khasbaya dib u heshiisiina waa sidaas meel baa wax ku xiran yihiin ama meel arrimo ku tilmaaman tahay hadda waxba kuma socdaan waxba kuma siiroodaan. aad buu mahadsan yahay caaqil cabdiraxmaan diiriye oo hogaaminaya ergo 21 oo Puntland uga qayb galaysa shir dib u heshiisiineed oo dowladda federaalku ay ka furtay maantay magaalada Muqdisho. Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran.